walaalayaal waxaan jeclaystay inaan ka hadlo qadiyad dhawaanahan magaalada aad iyo aad u gilgishay oo socotay muddo 2 toddobaad ah waa qadiyadii ninka barasaabka ka ah gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali lagu eedeeyay inuu meel xaflad ah diinta islaamka ku aflagaadeeyay qadiyadaas oo culimaduna ay aad uga hadleen sharcigu wuxuu ka qabanaa ay sheegeen laakiin magacyo badan yeelatay siyaasiyiintuna ay si gaar ah u adeegsadeen waxay noqotay shay magaalada Gilgila oo aad iyo aad macna badan iyo magacyo badan loo sameeyay shakhsiyan maanta aan waxaan jecelahay qadiyadaas inaan ka gungaaro salaadii duhur dabadeed maanta waxaan isku dayay inaan anigu si nasteexa ah ugu tago barasaabka gobolka waxaan ogaaday inuu ka maqan yahay magaalada Boorame oo Hargeysa tagay telefonkiisa ayaan wacay goor dhaweyd oo salaadii casir horteedii ahayd ayaan garaacay barasaabka waxaan ku yiri waxaan u socdaa nasteexo maxay diintu adiinu naseexa diintu waa nasteexo dhamaan muslimka oo dhan bay u tahay naseexadaas waxaan kugu socdaa naseexan kugu socdaa niyahow nin madaxa tahay haddii warkaasi ka dhacay oo aad aflagaadada geysatay waxa laga doonayaa inaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala u toobad keento oo ummadda hortada ka qeerato oo cadeyso deetana in badan baan waano iyo wax sheeg ku waday anoo waliba hadallada ku adkeynaya oo sheegaya miisaanka ay leedahay eeda marka lagu soo eedeeyo inaad diinta islaamka aad wax yeelaysay ama aflagaadisay ugu dambeyntii in badan markaan wada hadlaynay ayuu wuxuu dhaari maray wuxuu ugu yiri tubeecow wallahi billahi tallahi wadar magaca Allah ku dhaartay ku dhaaranay buu yiri anigu si ismoogana iyo si ula kacaba dhaar taasan marayaaye ma garanayo inaan anigu diinta caayay meeshuna buuq iyo qaylaha waxan baa ka jiray meeshana caray waxba lagu kala tagay saasay hawshu ahayd ninkaasi dhaar buu maray qofka muslimka ah anu naseexan ugu tagay xoolo kama dooneynin mas'al siyaasad kama dooneynin waxaan doonayay qadiyadaas inay soo afjaranto haddii qofkii ku leeyahay ilaahay baan ku dhaaranayaaye anigu ma oogi hadalka inuu afkayga ka soo baxay wixii inta ka dambeeya in qofka laga hada wanaagsan oo qofkaasi ilaahay isaga loo daayo qofka hadduu ku leeyahay qof muslim aan ahay وانا شهادنيا الى وانا توبت كينيا habeenay maalinba oo saako oo qofkii ku calaacalayo walka taagan yahay nimayaho waxa lagu sii daba socdo oo buuq laga raadiyay meesha kuma jirto dadyoga muslimiinta ah dhamaantood waxaan ugu naseexaynayaa diinteenu waa naseexo diinteenu waa diin wanaagsan maaha ruwaayadii ciyaar maaha fagaarada joogsada maaha tool iska hadlo reeb lagu sheega maaha wal Allah laga baqo إلهي درتي أن يكون سحينيا أنا هذا الكائن لله والله ضربا مرياي إن أجدك لك لهين إن عدك الدفاع مدونيو إن عدك تاجر مدونيو إن عدك حماية مدونيو وحقيقتها إن الصحة إلهي درتي لمن يهودين تينو أين دين تينو قبصنا يا دين تلاقي دين ورن تذكروا تاجو الله وعيا لقى دين لكن مقعد بدن يالتي وردك السياسة دلهو سياسة دين إيه إسرائيل كينا هل كذا لا مرة